إنك Soomaalidu hore reer baadiya مثلا waxay rumaysnaayeen ninnimada iyo raganimadu inay tahay qofku inuu adkaado saasi daraadeed geeljiranimadu ammaan bay ahayd ninka geeljiraa waxa loo rabaynayay qof raadka u adkaysta oo dagaalka u adkaysta oo geeldhaca u adkaysta oo dhib u adkaysta waxa soo dhan saa daraadeed ilmuhu markuu 18 gaadhaba geela lagu daraa ka yar bay geeljiruhu wax walba ku raraa isaga hadhuubka sida oo gudinta sida oo maqaarka sida oo xoolaha raacaya waxa laaliyo waxay xoolaha haystaan ama qalab sitaan ka ugu yar baa sida waxa soo dhan isagoo xambaarsan oo maanta dhan daalana xoolaha raacaya mid yar oo leega ka soo horbaxaya intaba dhigay oranayaan oo la ulinta loo dhiibo haduu ooyo waa la dilayaa haduu intuu ultamo uu ooyo ama laga badiyo kii weynaaye wada dilayo oranaya nacasku dhaleen rag iska celinay waayo culture kan baa wuxuu ku salaysnaa qof adag in la soo saaro oo abaarta iyo dagaalka iyo wax walba u adkaysanaya oo aan ibnu hunduul ahayn yeelabaystay nimaan ahayn inuu soo baxo ragay idan waxaan uga jeedaa bulshadu baahideeday ku salaysaa maxay qofka sida loo rabaynayo muxuu noqonayaa barito waxa jira usus nafsiyo qofka lagu rabeeyo oo ah muxuu qofku qaadi karaa dadkoo dham isku wada mid ma aha qofba cilmiga ku fiicnaan kara qofba farsamada ku fiican qofba farshaxnimo ku fiican qofba adab ku fiican ma aha dadkoo dham dhakhtar wada noqda inaad tiraahdo qofba dhiigaba markuu arko ma taga dadka badba haduu dhiig arko ma tagaya hadaa tiraka dhakhtar noqo wax qalsay u suurtoobaysa yani waynaad garataa ilmaha dhashay fawaariqda fardiga u dhaxaysa wuxuu baran karaa maxaa saan u baran karin waynaad garan kartaa alxaajaat an-nafsiyya aadanuhu muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay kow intimaa inuu cid ka tiirsanaado qofku kalima